qodobka afraad nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dadka waxa la jeclaataa ahibba lin-naasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman dadka iyo khalqiga la jeclo waxaad naftaada la jeceshahay muslim baad noqonaysaa waxay daliil u tahay inaad muslim tahay islaamnimadaaduna ay dhab tahay khalqiga ilaahay waxaad naftaada la jecelto wanaaga la jeclo maxaad naftaada la jeceshahay waxaad la jeceshahay cadaalad waxaad la jeceshahay amaan waxaad la jeceshahay xoolo waxaad la jeceshahay cilmi waxaad la jeceshahay cibaado waxaad la jeceshahay caruur wanaagsan waxaad la jeceshahay aakhira iyo janno ilaahay wajigiisa inaad daawato waxaad la jeceshahay wax kastood naftaada la jecesho khayr ah dadkana la jeclo macnaha maxaa laga wadaa miisaanka naftaadu saaran tahay eed wax ugu beegayso laftiisa dadkana ugu beeg laba miisaan oo midna khaaiya oo dadka kula dhaqanto midna naftaadii adiga xaaladahaaga aad ku miisaamato ha samaynin waylu lil mutaffifin way laba miisaan midna muxuu ahay dulmi ku socdo oo dadka aad kula mucaamalato midna aad wax ku beegatood adigu waxaaga ku ilaashato maya laakiin waxa lagu leeyahay dadka iyo adigu naftaada ka soo qaasida dadkoo kale wixii khayreed naftaada la rabtana dadka la rab nabigu markuu ka waramay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi aakhiru zamaanka iyo fitnada dhici doonta isdaba joogta ee midba midda dambe ka culus tahay wuxuu nabigu badbaado ka dhigay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ruuxii jecel inuu janno galo naarna ka badbaado iimaan geeridu ha u timaado asagoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan waa qodobka labaad waxa weeyaan dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay inay dadku isaga ula yimaadaan waxaad rabto in lagugula dhaqmo adiga dadka kula dhaqan waxaadan rabin in lagugula dhaqmana dadka ka ilaali waxa aad naftaada la jeceshahayna dadka la jeclow saas daraadeed baa nabigeenu xadiid kale wuxuu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi midkiin muusan